madaxweynaha qaranka William Samoei Ruto ayaa waraysi u siiyay telefishanka caalamiga ah ee Al Jazeera waxa uu kaga hadlay xaaladaha abaareed ee ka jiro gobolka Waqooyi Bari ee dalka. William Samoei Ruto ayaa sheegay in ay jiraan 3.1 milyan oo qof oo ku nool saddexda ismaamul ee Waqooyi Bari waa Mandera, Garissa iyo Wajir, kuwaas iyaga oo u baahan deeq iyo kaalmo maadaama ay waxyeeleysay abaarta. Waxa uu intaas ku daray in shacabka gobolka aysan waxba beeranin muddo 4 sano ah maadaama uusan roob di'in, halka 70% ay ka dhammaadeen xoolihii xilligan abaarta ay jirto. Dowladdiisan cusub ee Kenya Kwanza ayuu sheegay in ay ku qasbanaatay in ay isbedel iyo dib u habeyn ku samayso qorshaheeda dhaqaalaha si shacabkan ay gurmad u gaarsiiyaan. Gurmadka uu soo hadal qaaday William Ruto waxaa ka mid ah gargaarka cuntada. Qaylo dhaanta abaartan ayaa isa soo taraysa iyadoo barasaabka Mandera uu dhowaan kula biiray dhigiisa Wajir iyo Garissa dayrada ay ka muujiyeen xaaladda abaareed ee Waqooyi Bari. Siyaasiyiinta gobolka oo isugu jira xildhibaano iyo barasaabyada saddexda ismaamul ayaa doonaya in ay madaxweynaha ku riixaan in arrintan uu u shaaciyo in ay tahay masiibo qaran si shacabkan ay u helaan kaalmo maxalli ah iyo mid caalami ahba.